waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta haddaan nahay xusbigii qaran inaan dawadan aan ku wareejiyo si aad ugu wareejisid ciidanka qaranka Soomaaliland waxaan ka sheegaynaa un hadda wixii ka dambeeya insha Allah waxaan kula talinayaa inay difaac u noqotaan halka wax la wada daandaansan doonaa gudoomiyaha xisbiga ucud injineer Faysal Cali Waraabe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa socdaal ku tagay taliska ciidanka qaranka Soomaaliland ee magaalada Ooga waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay taliyaha aaga bari ee ciidamada sareeyo guuto Cali Barre iyo qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada qaranka gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa kulan la qaatay saraakiisha sare ee ciidanka qaranka ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga ucud injineer Faysal Cali Waraabe aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horta ilaahay maanta aan isku soo booqano maanta waxa weeye dalkeeni amba waynu ku tagi nabad amba cudud baynu ku tagi haddii la yidhaahdo laakiin naga soconayo waxa lagu sheekeysanayo carruurtii dumarka lagu sheekeynayo wax suurtagala maahe waqtigun baa laga luminayaa carruurta wax baran lahayd waa dad ay xumaan iyo magaranaysaa dhabcaasho uu ka qariyay xaqiiqadii taagneed iyaga waxa ilaahay soo hadeeyay ilaahay dadka tada wuxuu ku talaabsaday magaalada quruxda badneed ee dhaqaanay ee jaamacadaha lahayd ee cusbitaallada lahayd ee iskuulada lahayd maanta aad aragteen faaruq tahay carruurtii dadka waxaa ku taliyay waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay soo hadeeyay waxaan leenahay ugu taleenaa war meel la kala tegayaa ma jirto ilaa baa iskeen baday ina reer raaci ma iyo qabiil iyagana wax lagu ducayno inaga maanta cudurkii qulubteena kala jeediyey oo uu soo dhamaayo doorashada ahayd waxaan cudurkaa la daweeyaa waxaan kale hadduu madaxu ku xanuuno hadduu magaranaysa hurdood ka xumaato waa symptoms baa la yidhaha laakiin wixii waxaan keenayay ayaa la daweeyaa marka wixii keenay khilaafkeena iyo foolxumadeena doorashadaa la sagsaagay ayay ahayd tiina insha allahu tacaala waqtigan hadda way noo dhacaysaa waxaan doonaya si nabada ay inagu dhacda ayaan doonaya insha allahu tacaala hareeraha iska taagnaa saddex xusbi waa isku keennay haddana guddi baanu ka sameynaa insha allah inuu gacanta ku hayno wadan iyo kulmiye horta waa xusbi kala jabe uun waa kulmiye uun laba cudur baa ku jira moogta xogeeya guud iyo ciro inta kale waa kulmiyihii hore waa kulmiyihii kala jabay midba gacan baan ku haynaa insha allahu tacaala si aynu dalcadda ka baxno adduunkuna inoo soo jeeso doorashadaas inoo qora inagamay xumeyne adduunkaba inaga jeedisay adduunkii inoo hanka weynaa lahaa waa tusaale fiican Somaliland ee lagu faaniyey ayaa xitaa inaga jeedisay ilaahayna qulubtooyana siiya subxaanahu wa tacaala waxaan ka sheegaynaa un hadda wixii ka dambeeya insha Allah waxaan kula talinayaa inay difaac u noqotaan halka wax la wada daandaansan doonaa waxa ay ka daansan laba arrimood bay leeyihiin in dadkii lacagta ka soo gurin jireen oran jireen waan dagaalamayna oo ina wax ka helaan iyo in la yiraahdo ay lahayn wata Soomaaliya waxay isku dilaysaa heshiiska la gelayso Ethiopia ee la joojiyo labada arrimood bay wataan inagu difaac bana insha Allah taala saa kala tali qoladiina waan la soo hadalay ma xalayto iyaguna SSB da madaniga yana xaytaan hadalnay xabada ridina dadka walaaladeena ee la isticmaalay aqliga oo iman doonay ya la isticmaalay taasna waa inta kula tardaarmiya de anagu xukunka Ilaahay baa bixiya laakiin waxaan u dagaalamaa waa qaran laano micna qaranka garanaya dadkeenu qaranka garan mayno dhadhamin qaran mayno dhadhamin Ethiopia ee la joojiyo labada arrimood bay wataan inagu difaac bana insha Allah taala saa kala tali qoladiina waan la soo hadalay ma xalayto iyaguna SSB da madaniga yana xaytaan hadalnay xabada ridina dadka walaaladeena ee la isticmaalay aqliga oo iman doonay ya la isticmaalay taasna waa inta kula tardaarmiya de anagu xukunka Ilaahay baa bixiya laakiin waxaan u dagaalamaa waa qaran
laanno micna qarankan garanaya dadkeenu qaranka garan mayno maynu dhadhamin qaran maynu dhadhamin berigana 4 sano ugu jirnayno ayaan afar maalmood ayaan bixinay istadi baa la sameeyaa say waxaa qaldamay waa inay ilaa 60 wixii naga qaldamay waa inaynu daris ka sameynaa oo isa saxnaa qoys baynu nahay ilaa laas qoray ilaa loo yacdo dadkeenu family baa weeye ee qoyska haddaanu helin waalid wanaagsan ma tamariyo ilaahay waalid wanaagsan oo xukmo wanaagsan ina siiyo ilaahay qofkii khayr qanaha soo saaro ilaahay baa gacanta ku haya gacanta laakiin anigu waxaan u dagaalamaa inaan wax noqono oo qaran noqono dadkeena dowladnimada u horhelay ee 26 Juun helay ee caanka helay ee u shaqeeyay Soomaali weyn ayaa maanta Soomaali ka leedahay dadkaas dalbuha kasina Djibouti passport barina kii shanaad meel waxba ka heen hawda reseferia oo halka ay geysay ayaa maanta aan lagu leeyahay maya passport heli baysi waxa soo wada saxina hawda arintii hadda gelina hadda la yiraahdo in kila gaara laga dhigo insha Allah taala hawda reseferia qolo kasta intiida xukunto taas hadda hawsheedii heshiiskana uu dhacaya insha Allah taala dul ma bixinino waxa xabashi ma bixin ma siina dul waa base baynu siinayna base-kana iyaguna base bay u baahan inaguna suuqaaseen u baahanahay dibi weyn maxay nus bilyanka u geysay waxay suuqaas eegsi baqaya watanka kaasaynu insha Allah taala la wadaagi doona اعترافkeenu heli doona insha Allah taala oo xaqeeniya wadakii wax marimayno wax xumaana oo inoo dhaxeeya Ethiopia waxay ahayd inuu hawda reseferia jawar soo imka dawlad maaha kila ka shana ya inuu waka dalkeena ma joogto xabashi iyo shisheeye guri kasta waxa jooga oo Soomaaliya horta koonfur horeyn hadda koonfur tiraada anoo qoyad noqonaysaa Soomaaliya leeyna Soomaaliya wili dhaha hadda koonfur tiraada qoyad koonfur baa leeyna koonfur dhaha Soomaaliya Talyaaniga waa feel garooday markii berigii hore 60 hadday inagu u tageen dawlad may samaysan kareen oo heshiis maaha maanta hadda ka baxnaa xabagti aan moogtahay xabagti ka baxday arwakaas dawladda samaysteen oo shanta dawladood ee shanta reer samaystay inaga u tagi mayno laakiin oo duceeyay Ilaahay hagaajiyo inaga hagaajin doona halkan meel ka hagaajin marka hadda la yiraahdo inta halkan isku yeerno ayaynu xabashina dantooda ma hayso Mareykanna ma hayo Djibouti ma hayso Kenya ma hayso inaga garanayna oo kala gar qaadi doona hadii la yiraahdo marka waan guuleysanayna khayrkeena waa bilaabmay xamaadkeena waa bilaabmay istilaafkeena waa bilaabmay walaanimadii waa bilaawday quluubteena midowda bilaabantay Ilaahay waxa ka baryahay in caruurteena iyo mustaqbalka inuu hagaajiyo dalkeena dal loo soo haajiro Ilaahay ka dhigo dal loo soo haajira oo kitaabka Ilaahay sunnada rasuulka kor u haya ayaa Ilaahay ku ragacay tawxiidkeenaas ayaan kala baxayna insha Allah taala kaasaynu saari doona insha Allah ayaan ku dhaqmi doona waa mahadsantiin guul ma idin rajeynaya intaasi kadib gudoomiyuhu waxa uu ciidamada ku wareejiyay deeq dawo ah waxaana gudoomiyay deeqdaasi dawada ah taliyaha aaga bari sareeyo guuto Cali Barre taliya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta haddaan nahay xusbigii qaran inaan dawadan aan ku wareejiyo si aad ugu wareejisid ciidanka qaranka Soomaaliya dalina ee aagan degan ayaa waxaan doonayaa idiga guddoontin Ilaahay hoosiye aad iyo aad way ka guddoonay waan ku faraxsanahay aad ban idin soo dhaweynayna una guddoonay